السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود وواضح أدي هذا ومهد سنتهين ما أنت واحد وأنا لبي لباتنك بيش اللباد فبراير سنة كلباد كون إيه لحية لباتنك مقال كان وحر بين إن كل وذاقه نين حلي سوق لي قصر مدحوين ترام وكل هاي قبل كفلوريدا ومعلمها سبت ذا إيه أحدها مركز شقائي سنجرين وآدو حلي سوق لي كدبنا هالكاسي لقوتوك تي أو للدلي هذا من كان محوتي محودة مع سنة halkuu ka yimid ilaa ay hadda baaritaanadu maxay muujinayaan ayaan rabaa inaan idin la wadaago. Lay abaara saacadu marka ahayd 7 saac iyo 30 daqiiqo ayaa nin hubeysan waxa uu soo galay qasriga madaxweyne Trump uu ku leeyahay gobolka Florida gaar ahaan Palm Beach oo ah qasriga Mar-a-Lago. Waxa la leeyahay ninkan ganjaalka dhinaca waqooyi ayuu ka soo galay ilaa hadda sida uu ku soo galay baaritaan ayaa ku socdo. laakiin waxa loo maleynayaa gaari markaasi galayay in uu ku daba dhuuntay kadibna uu sidaasi ku galay sida uu sheegay taliyaha ciidamada sheriffka ee Palm Beach Florida ninka la yiraahdo Rick Bradshaw waxa uu xaqiijiyay markii ay dareemeen in dhaqdhaqaaq uu ka jiro maadaama kaamirooyin ayaa halkaasi ku xiran guud ahaanba gurigaasi in loo diray 2 askari oo ka tirsan ciidamada Secret Service-ka ee madaxweynaha ilaaliya iyo sidoo kale hal askari oo ka tirsan ciidamada sheriffka ee Palm Beach Florida kadibna halkaasi waxay kula kulmeen nin wata qori iyo waliba caagagan gaduudka ama casaanka ee shidaalka dadku ay ku shubtaan inta badan marka ay safar dheer galayaan oo kale markaasi kadib labada askari ee ciidamada ilaalada Secret Service-ka ka tirsanaa ee madaxweynaha ilaaliya guriga madaxweynaha iyo askarigii ciidamada booliska ee sheriffka ka tirsanaa ayaa waxay ku amreen in uu dhigo waxyaabaha uu gacanta ku wado ninkaasi caagii shidaalku uu ku jiray ayuu dhulka dhigay qorigiina waxa uu ku soo taagay ciidamadii la hadlayay markaasi kadibna ciidamadu waa ay toogteen isla goobtii ayuuna ku dhintay waxaan ognahay madaxweyne Trump sabtida iyo xadda inta badan qasrigiisa Mar-a-Lago ayuu aadaa golofka ayuu jecel yahay inuu ciyaaro halkaasi ayuu golof ku ciyaaraa marka ninkan wuxuu isdhahayay Trump xilligaasi ayuu imaanayaa maalmaha sabtida iyo xadda ee halkaasi ku gaad wuxuu doonayay inuu dilo qasriga Mar-a-Lago ayuu doonayay inuu gubo maadaama ninkan uu watay caag shidaal uu ku jiro iyo qori haddaba ninkan waxa magaciisa lagu sheegay Austin Tucker Martin waa 22 jir waxa uu ka soo jeedaa gobolka North Carolina ninkan 700 oo mayl ayuu gaarigiisa soo watay si uu u soo gaaro gobolka Florida gaar ahaan qasriga madaxweyne Trump uu degan yahay haddaba ilaa ay hadda maxaan laga ogyahay marka wiilkan dhalinyarada ah oo xalay guriga Trump dhexdiisa lagu dilay ninkan sababta uu ku soo galay ayaa waxa la yaab lah ilaa ay hadda baaritaan lagu wado wiilkan waxa la leeyahay waa 22 jir waxa uu jecel yahay sawir gacmeedyada gaar ahaan meelaha golofka lagu ciyaaro inuu sawiro Trumpna waxa uu jecel yahay inuu golof ka ciyaaro marka ninkan waxa uu doonayo inuu Trump golof la soo ciyaaro waa arin la yaab leh oo hadda baaritaan lagu hayo bartiisa Instagram markii la galay waxa la ogaaday in laga helay sawirro oo kuwa color leh iyo kuwa black and white ah oo sawir gacmeed isagu uu sameeyay oo meelaha golofka lagu ciyaaro ah sida hadda sawiradan aad ka arkaysaan qoyskiisu ninkan waxa ay sheegeen oo booliska ay ku wargeliyeen in la laayahay ninkan waxa uu ka la noolaa hooyadii iyo aabihii uu kula noolaa guri meel cidlaha ku yaalo oo dhinaca miyiga oo Cameron magaalada la yiraahdo oo gobolka North Carolina waxana way sheegeen waalidiintiisa ama qoyskiisa Facebook barta ay ku leeyihiin qoraal ay soo dhigeen in ninkan la waayay ka hor 8 habeennimadii sabtida ahayd ninkan waxa uu gurigiisa ka soo tagay 1 duhurnimo marka waxa la dhahayo uu soo laabanaya markii uu soo laaban waayay ilaa iyo 8 habeennimo ayay waxa ay waalidiintiisu ay waceen booliska oo yiraahdeen wiilkaasi ayaan la'nahay eedadii oo kale waxa ay soo qortay qofkan uu sidan sameeyay ma noqon karo wiilkii aan eedada u ahaa la yaab ayay la noqotay marka ilaa hadda baaritaana ayaa socdo ninkan kulay waa uu dhintay guriga madaxweyne Trump ayaa lagu dilay madaxweyne Trump marka xalay ma joogay Palm Beach Florida maya aqalka cad ayuu ku sugnaa madaxweyne Trump sida mas'uuliyiinta ay sheegi doonaan oo aad arki doontaan madaxweynuhu waxa uu xalay casho la lahaa gudoomiyaasha gobolada oo arintaas sida khilaaf uu ka taagnaa oo leeyahay kuwa Republicanka oo kaliya ayuu casuumo kuwa badan oo dimuqraadiyiin aysan ka qayb galin
aqalka cadna waxa uu leeyahay casuumad waan u dirnay oo gudoomiyaasha dimuqraadiyiintu iyaga ayaa diiday marka madaxweynuhu xalay ma uusan tegin isaga xaaskiisa kulankaasi cashada oo gudoomiyaasha gobolada oo aqalka cad ka dhacayay gobolada Mareykanka ayuu madaxweynuhu u joogay haddaba taliyaha ciidamada sheriffka ee Palm Beach Florida ninka la yiraahdo Rick Bradshaw ayaa waxa uu ka warbixinayaa sidii ay xalay wax u dhaceen sidoo kale waxa goobta ka hadlay shirka jaraa'id ee mas'uuliyiintan ay ku qabanayeen ninka FBI-da Miami madaxda ka ah oo isaguna uga mahad celiyay howlgalka ay sameeyeen ciidamada ilaalada guriga madaxweynaha ee Secret Service-ka iyo waliba ciidamada sheriffka ee Palm Beach waxana uu sheegay maadaama arrintan ay ka dhacday meel ay maamulkeeda gacanta ku hayaan ciidamada Secret Service-ka inay ka caawin doonaan baaritaanada laakiin dadka shacabka ee ka agdhow qasriga madaxweynaha ayaa wax ugu baaqay kaamirooyinkooda waxyaabihii ay duubeen in ay la wadaagaan haddii ay ku arkaan wax ay ka shakiyaan ilaa iyo xalay ilaa iyo saacadihii hore ee saaka aroornimadii intii aysan shilkan dhicin marka waxa sidoo kale ka hadlay ciidamada Secret Service-ka ee Miami ninka madaxda ka ah waxana uu xaqiijiyay in madaxweyne Trump xalay marka arrintaasi ay dhacayso uusan qasriga Mar-a-Lago uusan ku sugnayn isla markaana isagoo maqan ay arrintan dhacday marka waa kan iyagoo sidoo kalena ka hadlaya ninka FBI-da madaxda ka ah Miami iyo waliba midka Secret Service-ka sidii ay wax u dhaceen iyo codsiga ay shacabka ay u jeedinayaan kan waliba gaarigiisa markii la baaray waxa laga helay qoriga waliba waxa loo maleynayaa intii uu wadada ku soo jiray inuu horey u soo iibsaday marka box ayaa laga helay gaarigiisa in uu qoriga markii uu soo gadanayay iyo meeshii uu ka soo gatay kulay baaritaanadu waa ay socdaan gaarigiisa waxyaabaha kale oo laga helay ilaa iyo hadda ma aysan sheegin ciidamadu laakiin waxay sheegeen sidoo kale ciidamada ninkan dilay oo toogtay waliba guriga madaxweynaha ku toogtay in ay kaamirooyin u xirnaayeen muuqaaladina ilaa hadda lama soo bandhigin waan arki doonaa haddii iyagana la soo bandhigo sidoo kale waxaa jirta in hadda 4tii bishan February la xukumay Ryan Ruth oo Trump isku dayay inuu dilo 15kii bishii September ee sanadkii 2024 xilli markaasi Trump musharax madaxweyne uu ahaa ninkaasi Ryan Ruth oo lagu helay dambi isku day dil madaxweynaha inuu doonayay waxaa la arkay isagoo meel kayma ah qori siliga ama fensiga ku wareegsan qasriga madaxweynaha in uu qori ka soo taagay uu doonayay madaxweynuhu maadaama xilligaasi golf uu ciyaarayay inuu halkaasi ku toogto waa uu cararay markii askari ka tirsan ciidamada Secret Service-ka uu xabad ku riday kadibna waa la soo qabtay waa la maxkamadeeyay bishii September ee la soo dhaafay hadda ayaa lagu helay dambiyadiisii 4tii bishan ayaana waxa lagu xukumay xabsi daa'in iyo waliba 84 bilood oo ah isagana dambiyadii dhinaca maadaama aan mamnuuc ka ahaa inuu qori qaato oo qori lagu helay isagoo wata marka waa isgarab socon doonaan xabsi daa'inkaas iyo waliba 84 bilood ayaa lagu xukumay ninkan 4tii bishan marka waxaan ognahay Trump sanadkii 2024 xilligii musharaxa madaxweynaha waa ka hor intii isku daygan dilkan uu san dhicin waxa ka horeeyay mid kale oo wiil dhalinyaraha isagoo madaxweynuhu la hadlayay taageerayaashiisa Butler Pennsylvania uu ilaa iyo 9 xabadood ku soo riday oo madaxweynaha xitaa dhaawac uu dhegta ka soo gaaray marka tan waxay noqonaysaa markii saddexaad oo muddo ku dhawaad 3 sano gudahooda Trump loo maleynayay in la isku dayay in la dilo marka waan arki doonaa baaritaanada iyo waxyaabaha ka soo kordha laakiin ilaa iyo hadda waxa faahfaahinada iyo ciidamadu ay soo bandhigeen intaasi ay muujinaysaa in wiilkaasi oo North Carolina ka soo tagay oo lagu dhex dilay qasriga madaxweyne Trump uu ku leeyahay Palm Beach Florida oo ah qasrigiisa Mar-a-Lago waxa sidoo kale la leeyahay hooyadii aabihii guriga ay deganaayeen 1.1 milyan oo dollar ayuu joogaa oo Cameron North Carolina ku yaala meel miya oo cidla ah ayuuna ku yaala marka ninkan ma cidla ayuu dareemayay sidee arriman ay sidoo kale ay ku dhaceen ilaa hadda baaritaanada booliska iyo FBI-da iyo baaritaanada waxyaabaha ay soo bandhigaan ayaanu arki doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo